kusoo dhawow qaraax tiyub fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale. Ozil ayaa isaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah kadib markii uu kala kulmay dhaleeceyn badan xiriirka kubadda cagta dalka Jarmalka. Ozil asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa dalka Turkiga balse wuxuu qaatay dhalashada dalka Jarmalka isagoo kubadda cagta uu matalayo xulka qaranka dalka Jarmalka kadib markii intuusan bilaaban koobka adduunka 2018 uu la kulmay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo London ku sugan. Ozil waxaa lagu eedeeyay arrimo badan oo ku saabsan siyaasadda waxaana loo sheegay inuu yahay ciyaaryahan siyaasadda ku biiray maadaama xirfadiisa markii hore ay ahayd kubadda cagta. Ozil ayaa u dulqaadan waayay inta uu socday koobka adduunka dhaleeceynta kaga imaanaysa xiriirka kubadda cagta dalka Jarmalka. Ugu dambeyn wuxuu go'aansaday inuu isaga fariisto ciyaaraha isagoo warqad dheer ku soo qoray inay ku filan tahay wax badan inuu matalay xulka qaranka dalka Jarmalka haddana uusan u dulqaadan karin cunsuriyad iyo xushmad daro. Ozil wuxuu yiri waa inaad ogaataa meesha aan ka yimid waa inaad ogaataa Erdogan waa madaxweynaha familkayga waa madaxweynaha meesha aan deganahay sharaf ayna ii tahay inaan la kulmo isaga sababtoo ah mar walba waxaa la igu soo tarbiyay inaan ixtiraamo dadka waaweyn ayuu yiri ani ahaan uma dulqaadan karo waxyaabaha iiga yimid xiriirka kubadda cagta dalka Jarmalka mana sii xirnaan karo maaliyadan ayuu sidoo kale yiri Mesut Ozil. waad ku mahadsantahay daawashada videogan fadlan ha ilaabin like iyo share kadibna inaad daado subscribe mahadsanid.